caafimaadku waa tiir ka mid ah nolosha oo ay laga maaran tahay inay bulshadu ka sinaato helista adeegyada caafimaad. Laascaanood waxaa laga hirgeliyay xarun caafimaad oo laga heli karo dhammaan baahiyaha caafimaadka. In ka badan 5 dhakhtar oo qaabilsan xanuunada kala duwan ayaa ku kulmay xaruntan oo lagu magacaabo Fayo Medical Center waxay wax badan ka bedeli doontaa baahida caafimaad ee gobolka, maadaama markii ugu horeysay ay tahay xarun noocan oo kala oo laga hirgeliyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Munaasabad xadhiga lagaga jiriyay isla markaasina lagu soo bandhigay adeegyada xaruntan cusub ee ay qabato ayaa lagu qabtay Hotel Mustaqbal ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa goobjoog ah furitaanka xaruntan caafimaad. farxad weyn bay maanta noo tahay inaan ka soo qayb galno furitaanka isbitaalka cusub ee Fayo. isbitaalkan oo ka mid noqon doona isbitaalada ku soo biiray magaalada Laascaanood iyagoo isbitaalada horena ka furnaa. kolley dadka wixii isku fiila ama wixii meherado intii isku fiila way iscamirtaa ee waxba isma yeesho. meesha dhakhaatiirtu ku sii badato daweyntiyo tayadii wax walba way sii bataan. marka taan waa in sida loo fahmaa ugu horeysiyo sababta aanu u doorbidnay inaan meeshan furo aimkeeda guud ma aha in dhaqaale laga helo. aimkeeda ama ujeedada ugu weyn ee aanu uga dan lahayn waa in la helo shaqo urursan oo leh waaxyo kala duwan oo buuxin karta dhammaan baahiyaha caafimaad ee gobolka. qodobkaas waxa way qodobka noogu weynaa. waxaanu aad iyo aad u ognahay in qolyahii isbitaalada naga horreeyay furay dalku aad ugu raystay. waa soo dhaweynaynaa wixii awood iyo amba karitaan aan u awoodi karnana wixii la tari karana de waa tari doonaa haddii alla idmo amba waanu istari doonaaba. waa guul tallaabo fiican weeyaan. waa aad u wanaagsan gobolka in dhakhtaro badan oo mar keliya cusbitaal keligii wada jooga laga heli karo oo aan Hargeysa loo dirayn, Burco loo dirayn, Nairobi loo dirayn, India loo dirayn, laga kaaftoomo diritaankaas oo dhan laga kaaftoomo oo gobolkeena hawsha noocaasa gobolkeena loogu qabto dadkii bukaanka ah. waa guul weyn. horumarka oo dhamme ama ganacsi ha noqdo ama waxbarasho ha noqdo ama dhinacyada kaleba ha noqdo wuxuu ku xidhan yahay waa caafimaad. bulshadu markay caafimaad qabto bay horumar gaari kartaa. haddayaan caafimaad lahayn de horumar ma gaari karto. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in meelihii la rabay in wax laga qabto caafimaadka sida tayeynta dhakhaatiirta iyo tayeynta dawada oo loo baahan yahay in wax laga qabto in labadaba wax laga qabto. inkastoo imanka facility-ga iyo adeega daawadu aad u fiican iyo daawo aan Mareykan kala imid baa iga dhamaatay. markiiba waxaan tagay farmashiga Soomaaliya waxaana wardawadaasaan u baahnaay iga maratay 3 isha kadib baa la keenay. wasaaradda caafimaadka xarumo hore badan oo la furano waan soo dhaweynaa waan la shaqeynaa. insha Allah waxaan rajeynaynaa idinna inaan wada shaqeyn doonaa. waxa la wixii wasaaradda caafimaadka tasiiraad uga baahantina gacan baan isku sii doonaa. runtii waxaan soo dhaweynaa xayaat oo la shaqeyno tayasiir manhal wasaaradda caafimaadka wixii service caafimaad wasaaradda caafimaadka ama deegaanka u soo kordho hawl caafimaad aad baan u soo dhaweynaynaa. niyad furan baan ugu soo dhaweynaynaa. waxaanu ugu baaqaynaa qaybaha bulshada ee kala duwan inay baahidii ay u aadayeen gobolada kale ay gurigoodii ugu timi qarashku ka yaraanayo iyaguna ay la shaqeeyaan oo ahmiyad tusaan. Hamza Raadi, RTN, Laascaanood.